وإن السومال لأن سيدا ودا صعب بدن وإن المامل كذا أي تاجرته أو الشيء دولة تجيب بورصة على الشيء ما يصير تضل يدبت هذا الشيء يسمى مامل كا أنا قلت لنا إن مامل كاسوت يسوي شرعي يسوي مامل هذا مدين كارلك وشرطة جنوبي سيا وجن مامل بانغسلي تذكر هذه مامل ويان ده مش شغال كرام مركب كوبات مركب لباب إن بشوي تري حرب إن بشوي تري سلل بشوي تجيب بورصي إن هالك واحد واحد هنا إن أخذ واقعي مامل عصب أو إن دقيمة الحرب دان تبري إن بيرها الدجاء إن مامل عصب بستين يكون واقعين إن أديات بنو فرح سنة هاي إن وحكرون واسود ويننا وحويان بشوي تحرر iyo gidib buusi dhamaan dal iyo dibadba waxa ka codsanayna inay sida u dhaqsaha badan maamulka ay taageeraan ay hambaliyayaan maal iyo muruq waysa gaar taagan biimilaakan hadii la yiraahdo waxa ka salaamaya xukuumadda Soomaaliland halkan aad ugu salaamayna waxa weeyaan maamulkayaga ay dadkaygu rabitaankayga shacab ku yimiday waa inay Soomaaliland ay noo ansixiso hayna taageerto waxa weeyaan annagoo ka shaqeynayna qarannimada Soomaaliland wadajirka Soomaaliland iyo midnimada Soomaaliland iyo cadaaladnimada Soomaaliland annagoo ka shaqeynayna waa inay Soomaaliland sida ugu dhaqsaha badan leh waa inay maamulkayaga ay u taageerto aad iyo aad maasantiin madaxweynaha iyo madaxweynaha salaamina waxaan leenahay maamulka cusubeen ku dhawaaqnay hal soo dhaweeyo maamulku ma maamul macaarada waa maamul taagan qarannimada Soomaaliland iyo jiritaankeeda waa maamul taagan waxaan leenahay maamulkan aan ku dhawaaqnay ee daanta bariga xariirad wuxuu xukumaa ilaa 10 goobood way beelu degaan marka bulshooyinta waxaan leenahay cashuurtana ha bixiyaan maamulkana ha la shaqeeyaan qarannimada Soomaaliland ha ka shaqeeyaan hana soo dhaweeyaan maamulkii hore jirna waan kala faataxaysanay waxaan ku kala guurnay ardayda waxaan kula iskoolada ku kala guurnay iskoolkii waan ku kala guurnay ciyaaladii wala soo dareeriyo ciyaaladii gaar ma wax ugu dhiganaa dawladuna mishaar ma siiso annaga isku maamulay waxaan ku kala baxnaa kala meedii ciidii baan ku kala baxnay intaas oo dhan ku kala baxnay marka wax kale iska jiraaba ma jiro annaguna inaan bilaa maamul ahaan muddo inta leeg oo suurto galay sida awgeed maamul baan dhisanay dadku hadii maamul waayaan de ma shaqeyn karaan sida awgeed waanu ka maarmi weynaa maamul dhisano u shaqeeya dawladda qaranka Soomaaliland shacabkana u shaqeeya wixii shacabku dhibaatooyin iyo wax la gudbo ana ka maxamed la tacaala muddo markaa kala dambeyn bay leedahay iyo maamul sida maamulka wasanaad wadi salaamaas de maamul baan dooranay maamulka aan dooranay waxa nagu kadeeday inaan dooranno maamulkii de magaalada ka jiray cid buu iska noqday oo de iska yeelatay de marka haddii aad maamul weydana waxa weeyaan wax shaqeynaya ma jiro waxa weeji quraanta yar ee xawayaanka yaa maamulka maarmi weyday maadaama quraani maamulka maarmi weyday meesha dadka inta leeg ee 10 goobood ay beenta ay xukunto iyo magaaladii maamul aan way shaqay waay marka annagu inaan maamul samaysanaanu garanay dawladana kama soo horjeedno Soomaaliland ha noolaato waan la shaqeynaa ciidanka qaranka iyo wasiirka madaxweyne ku-xigeenka Jabi Soomaaliland oo dhammaan la shaqeynaa ha noolaato awal wala shaqeynaa wax nabadgeliyo daroon ka wadnaana ma jirto laakiin qofku laftiisa wixii uu dana hadii awaayo halka sidii ugu dhaweeyala war annagu hadana deenta bari xariiq de waxa weeyaan maamulkii kolka ciri yeelatay in annagu arki weyne meel joogana arki weyne de waxa weeyaan ninku gudoomiyahay hadii waxa weeyi intuu suuqa soo mara maqaaxibun ka ababun adabun haduu ka abo in xukuum lagu laa de maanu arag marka maadaama sidaa dhacday de danteeda ay iska qabsadeen deentaay annaguna inaan danteeda qabsano wax dagaala iyo wax ka horimaada iyo waxaan dawladda ka soo horjeednaa mid ma jiro saaqalka waxa ka dooranay maamul baa ka dooranay maamulka waxa u dooranay annagoo horta daanta gadabuursiga waxaan dooranay maamul buuxa gudoomiye oo Mahdi Saciid Faahiye
iyo ku-xigeenka waa Ibraahim Aadan iyo xogayaha waadan Xuseen waxaanu u dooranay arrinkaa nagu kalifay cid ku xumayn iyo waxaa ku sameey midnaana maaha wardan tayada ayaan ka dhaxlan inaan maamulka doorno maadaama oo beeldan oo waa la garanaya masaafada cidii garaysa libaaxley iyo biililey inta u dhaxaysa waa la garanaya intaa oo dhan bilaa maamul bilaa waxba marka ay noqoto waynu garanay in aan Gadabuursaan u doorno taana garanay cidna kuma xumaynayno waxaa u sheegayaa beelweynta Gadabuursi waxaa u sheegaya meel kasta joogto dal iyo dibad hala shaqayso maamulkaas la shaqayso waxaan u sheegayaa shacabka intaa la eg ee ballaaran ee xariirad iyo kabaadiyaha dhuxusha iyo caanaha ka keenaya halala shaqeeyo mas-uuliyiinta gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha si annaguna waan la shaqeynaa odayaashiinahay horta annagu waxaan nahay degmada xariirad beelweynta degan ee Gadabuursi baanu nahay horta xariirad intay Soomaaliland jirtay way jirtay intaa ay jirtay waxaa soo jiray maamul dhinac ka raran iyadoo oo sidaa haddana joognana waanu ku kala baxnayba dee duulmaa maamul la'aan ma shaqeeyo maamulka horta sidaasaan ugu kalifoon u dooranay dawladdana kamaanaa soo horjeedno waanu salaamayna waxaanu ka rabnaana inay maamulka yaga noo ictiraaftaanu dawladda ka doonayna beesha Gadabuursina waxaa leedahay dal iyo dibadba ha la shaqayso maamulka aan dooranay cashuurtana ha bixiyaan maamulka ha u dhiibaan ha bixiyaan marka koowaad Soomaaliland noolaato ilaahay baa mahadle maanta waxaa loo doortay maamul gudoomiye ku-xigeen iyo xogaye horta noo duceeyo ilaahay inuu nagu asturo halkaad noo doorateen marka labaadna waxaan codsanaynaa inaad nala shaqaysaan intaa kadib dawladda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa inay maamulkaas soo tayayso oo ay sharciyeyso ayna dulmayso waxaa kaloo ku daraynaa qoladaan ka dhalanay Gadabuursi duruuf baa keentay maamulka in la doorto maanta qolbajoog iyo qolqoljoogba waxaan ka codsanaynaa inuu hawshaa nala dhammaystiro si midnimo noola shaqeeyo dawladda Soomaaliland aad baan u hambalyeynayna saaka wax carqaladiina ma hormarna waxa weeyaan rabitaankaygii waa fushanay cid kasta oo danteeda u kacdaana waxa weeyaan waxay ku bannaantay in lagu taageero rabitaan shacab baanu ku imanay iskama iman waxaan kaga baxayaa maamulkaa la magacaabay dal iyo dibad iyo gudo baa lala shaqeeyo